بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج شجارة ومانتا أنا قلت لقلي إن أن جوابك بحيو كواسي ويسوي دين أصحابتي ذا هدي أت أبهنتهاي أما هدي أت ربطت إن أديك سؤالها أنا وحلقي أبا إن يكون نقدان جواب كواسي ومسكح أت كويسي كنا بقشوا عن سؤالها جواب هذا أتهاي برنامج كواد أما سؤال شكواد أمانتا أعرف إن أن كجواب حي تهاي سيدي كوسمي سكرا يوتيوب horta uma baahna YouTube in aad sameysatid hadii aad leedahay ciwaan Gmail waxa leedahay YouTube taasi waa hubaal laakiin waxa u baahan tahay oo kaliya in aad wax soo gelisid video ama wixii aad rabtid okay su'aasha labaad oo ah sideen ku noqon karaa qof professional YouTube ah taasi go'aankeeda adiga leh ama adiga leh in aad noqotid qof YouTube kana sidiisaba laba mid ayaa ka jirto labada mid ka jirto xitaa in aad positive ku soo baxday dhanka wanaaga ama negative oo dhanka xumaanta ah ku soo baxday Soomaalideena waxaan u baadanahay dhanka oo negative-ka YouTuberiska Soomaalida oo dhan waxay ku soo baxeen dhanka xumaanta haddaad rabtid dib waad u raaci kartaa ay ka dabalaalaad aflagaado wax walbo ay ka dhalay haddii aad gashid YouTubera Soomaalida wax allaale waxa ku qortid YouTube-ka waxa ku soo baxay wax la hadlaysa ay aflagaado wax walbo okay sidaad ku noqon kartaa ku sheega hadii aad dumar aad tahay waxaad u baahan tahay in aad talent leedahay talentigaasi saddex ama laba ayaan kaaga tilmaamaya midkood waxay tahay in aad tahay qof makeup artist ah oo qofka sida yaqaano sida loo mariyo naagaha loogu mariyo makeup-ka labo in aad tahay qof cooking-ka ama cunto karinta ku wanaagsan saddex in aad tahay qof beauty salon-ka ama sida cilaanka loo saaro aad taqaanid kadibna waxaad u baahan tahay oo kaliya camera qaali u baahnid computer baanid waxaas oo dhan waxaad ku qaban kartaa taleefankaaga waa duubaysaa codkaaga aad dib u saaraysaa kadibna postiga YouTube-kaaga ayaad soo dhigaysaa dadkaagana waxay ku daawanayaan marwalba wanaaga iyo wixii wax fiican kullama wax aad soo dhigtay ay wanaagsanaadaan kullama daawashadaada ay wanaagsanaato uma baahnid computer qaali ah camera qaali ah microphone qaali ah waad duubtay just wixii aad ku edit garan lahaydna ama aad ku sameeyay YouTube-ka video soo gelinaysidna dhanka hoose description-ka ayaa soo dhigi doona video kale aan uga hadlayo hadii aan ka soo haro dhanka wiilasha hadii aad tahay qof rabo in oo dalxiiska jecel waxaad sameyn kartaa in aad diyaarisid vlog hadii aad joogtid wadankii Soomaaliya ama hadii aad joogtid wadamo kale taba waxaad sameyn kartaa in aad vlog sameysid waxaad sameyn kartaa adoo guriga jooga in aad reaction soo diyaariso ama reaction qof aad ka bixisid laakiin dhanka wanaaga waxyaabaha oo ku xun yahay inaad sheegtid laakiin aadan afligaadin saddex waa in aad tahay qof wax soo gudbis fiican oo aad rabtid in aad siyaasadda iyo dhankaasi iyo wararka caalamka in aad soo jeedin kartid ama akhbaaraadka caalamka in aad la wadaagtid maalin walba wixii cusub dadka ku daawanayo saddex waa in aad sameyn kartaa tutorial markaan ka hadlayo videoyaasha gaaban oo dadka ay ka faa'iideysan karaan oo ah dhanka teknolojiyadda ama dhanka wixii aataba intaas hadii aad leedahay xirfad midkood waxaad u baahan tahay in aad YouTube sameysid dadkana aad la wadaagtid adigoo xumaan iyo dhankaas aad aadin hadii aan fiirino dhanka YouTuberada Soomaalida ah waxay sameeyaan inta far badan ay ka iscaayo si ay magac u sameeyaan tusaale ayaan soo qaadanaya waxaad aragtaan dad far badan oo maalin walba wax xun sameeyo si ay magac u sameeyaan waad aragtaan bil kasto waxa soo baxa qof ama qof hore u jiray ay wax soo suubiya wax la yaabo maalmahaas ama bishaas dhan wuxuu ku jirayaa YouTube-ka ama Facebook-ka ama Instagram-ka meelaha waxyaabaha la isku wadaagsan ama dadka ay ku wada kulmaan waad aragtaan taas la iskaga ma sheekeenay sarwaalkan adaa ii soo geliyay ma ku soo gelin bil ayay saarneed isaar maalmay saarneed way ka baxday macnaha maalin walba waxa lagu soo sameynayaa waji gooni ah si ay u sii joogaan laakiin dadkaasi waxaan leeyahay iskuma kalsoon oo ah dhan wax ay yaqaanin malahan oo ah qofka hadii yahay qof aqoon ahaan u dhisan mu u baahno in uu caytin ama aflagaado ama jirkiisu qaawan inuu YouTube soo galo feedback oo ka helo qofka hadii uu wax yaqaano qof cilmi leeyahay wuxuu sameyn karaa magac uu sameyn karaa dadka wax soo gudbi karo wax gudbis leeyahay magac ayuu sameyn karaa laakiin hadii aad jirkaaga gees ka soo qaawaysid magac inaad ku heshiid waxaad marka qofka haduu isku kalsoon yahay wax soo bartay dadka ayuu la wadaagaa wuxuu soo bartay hadii wax talent uu leeyahay wuxuu la wadaagaa dadka ayuu la wadaagaa talentigiisa hadii wax soo saar uu leeyahay wax soo saarkiisa kala wadaagaa hadii uu ganacsato yahay ama wax uu soo saaro oo dadka inuu ka iibiyo rabo waxyaabihiis ayuu u soo gudbiyaa laakiin qofka waxba aan soo baranin wiligiis aan iskuul tagin wiligiis aan diinta aan wax laga barin qofkaasi waxa uu sameeyaa inuu dadka caayo dadka aflagaadeeyo dadka ama isheeg waxyaabaha xun oo u soo gudbiyo dadka
laakiin haddii aad tahay qof wax soo bartay waxaad rabtaa haba yaraatee in aad wax un aad dadka u soo gudbi kartid waxaad samayn kartaa in aad dadka ka wacdin kartid waxaad samayn kartaa in aad quraan soo duubto aad soo geliso waxaad samayn kartaa way farbadin waxyaabaha aad YouTube-ka qaban karto just waxaad u baahan tahay oo kaliya maxaa quraan soo geliso laguma dhahayo maxaa dadka wax diinta u baray laguma dhahayo just waxaad u baahan tahay dadku daawado dadkaasna ay kugu qanacsan yihiin laakiin haddii maalin walba aad sarwaal u soo geliyo iyo uma soo gelin hadda dad isku haysatiin dhibkeeda leedahay haddii aad maalin kasta aad problem awoortiin adig iyo mid kale saaxiibka oo wadan kala jooga ama wadan isla joogtiin in aad iscaysiin aad ugu tala gasheen si aad magac u sameeysiin ama qof aad ku dhigtiin si aad magac u sameeysiin oo lacagna aad u heshiin taasina waxay tahay in aad lacagta aad helaysid inay xaraan ay tahay in siyaabo fara badan oo lacag loo soo biyo ay jirto siyaabo fara badan magac loo soo biyo ay jirto laakiin haddii aad wax soo baratay oo qof wax bartay aad tahay dad kala wadaag wax barashada laakiin haddii aad tahay qof waxba aan soo baran iska wado shaqadaada laakiin maalin un ay ka daba imaan doontaa maalintee waa maalinta adiga ay ka daba imaato ay kugu imaato marka haddii aad tahay qof jaahil ah jaahilnimada dhib fara badan ayay leedahay oo ah jaahil haddii camera loo dhiibo computer loo dhiibo isla markaasina oo barto clip lagu dhajiyo YouTube-ka ama videoyaasha la sameeyayo ma ahan inaad clip lagu dhajiyo waxay u baahan tahay inaad animation u sameysid inaad transition u sameysid in aad u sameysid macna sound effect u sameysid in aad color grading sameysid waxyaabo fara badan ay leedahay laakiin codki inaad sixi kartid haddii laakiin aad soo qaatay video kan soo qaat isku dhaji hor u sii socodsi taasi macnaha waa jaahilnimo oo in aad dadka aad ku caasid aad ugu talagashay waxaa idin rajeynayaa YouTuber horumar leh insha Allah inta YouTuber-ka ah aniga aan ila hadlayba mihi YouTuber caan ah ama YouTuber magac leh laakiin haddii dhanka caytinta aan bilaabo waa hubaa in aan magac weyn ayeen lahay laakiin uma baahni in aan caytin ama in aan dadka sida jaahiliinta ay rabaan in magac ku soo biyaan in magac ku sameeyo maadaama aan ahay qof wax bartay ama qof diinta wax ka yaqaano uma baahni in aan ku soo aanbaxo caytin iyo waxyaabahaas oo kaleeto waxaan idin leeyahay sideedoo kaleeto in aad u dhaqantaan